dhismaha wadooyinku waa mid ka mid ah tidhaxadyada halbowlowa horumarka bulsho iyo sidoo kale shacbi goobkooda dhaqan. waana suurageliyaha koobaad ee sabab u noqda helidda adeegyada aasaasiga arrimaha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha oo ay ku lamaan dhaqaalaha iyo sidoo kale isku socodka gaadiidka dadweynaha ee u kala gudbaya hadba laba dhan. sanado fara badan oo si weyn loo naagulayay marna suuragal ma noqon bilowga ilaa dhammaystirka dariiqan waa mid halbowlaha islamarhaantana xidhiidhiya inta u dhaxaysa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ilaa magaalada Hargeysa ee magaala madaxda u ah Somaliland sina mara magaalada Oodweyne ee gobolka Daadmareed. tani laga soo bilaabo sanadii 1960kii intii ka horeysay way Somaliland ka ariminaysay dawladda Britain iyo xukuumadihii ka dambeeyay intaasi ee Somaliland iyo Soomaaliya way dhamaantood qorshaha ugu jirtay dhismaha dariiqan marna suuragal ma noqon in cidii bilowda ay noqoto kuwa dhamaystira halka badankoodna yihiin kuwa haba yaraatee aan waxba ka qaban dariiqan. waxaase markan soconaya ifafaalo hor leh oo suuragal ka dhigi kara inuu ka baaxad balaadho kii wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cabdilaahi Abubakar Ismaan waa wasaaraddiisu ay hirgelinayso bilowga ilaa dhamaystirka dariiqan sida ay ballan qaadeen ahna mas'uulka ku dhiiraday marka laga imaado madaxweynaha inay u babax dhigaan dariiqan oo ah mid dheer sanado badan xukuumado kala duwan ay si weyn uga maageen bilowgiisa iyo dhamaystirkiisa waxaanu ka sheekeeyay sida ay uga go'aantay dariiqan inay hirgeliyaan. marka haddii hore loo dhagax dhigo la bilaabi waayay dhagax dhigu maaha inta calaamad meel dhigo inaan ka tago inaan yiraahdo Britolana hore loo dhagax dhigay hadii hore loo dhagax dhigay dhammaada wixii la qabtay wax hore loo qabtay ma jirto runtii aanu markaa waxaan aaminsanahay maanta dhagax aanu dhignay noqon maayo dhagax laga tagay wuxuu noqon doonaa dhagax dhisma oo insha Allah ilaahay ina la dhex galo wadada waxaanu qaybinaa laba qaybood waa qaybta Burco Oodweyne iyo Oodweyne Hargeysa waxaanu ku rajaynahay isla bangiga horumarinta Afrika inuu daraasad dhamaystiran inoogu samayn doono from Oodweyne to Hargeysa taas inta aynu helayno sanadkan hore waxa qorshe u yahay in la dhamaystiro oo laga shaqeeyo Burco Oodweyne marka kooska adeerkiisana 5 milyan ma dhisi doono 184 kilomitir laakiin qorshe waxa weeyaan qorshaha Oodweyne Burco taana ina saxan doonaya Maxamed Siyaad Barre waxaynu ka dhaxalnay 770 kilomitir oo wadooyin oo dawladii ku walaatay sanadii haysatay intaas la aqoonsanaa intaas soo dhaqaale helaysay 770 kilomitir qayb kamidi waa deyn bay ahayd laynagu leeyay maanta oo la leeyahay wadaymaha Soomaaliya laga cafinayo qayb kamidna deeq bay ahayd dawladda Maxamed Siyaad Barre garanaysan laha Afrika ugu xoog badan tahay itaal uma yeelan in 50 kilomitir ay Somaliland ka dhisto waxa dhisay waa deeq iyo deyn la siiyay laakiin alxamdulillah budgetkeena yaraynu haysanno ayaynu maanta ka dhisanay ku dhawaad 270 maantana waxaynu u taaganahay inaynu dhisan doono insha Allah 184 kilomitir ee maanta halkan aynu ka dhagax dhigayno. intina madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Saylici ayaa si rasmi ah u soo gunaanaday munaasabada. Intaan isu geeyno hadday tahay tuuma maskaxeed iyo tuumaali tumruqba. waxaa leeyahay hore Togdheer iyo inta kale muxsiniina ummadda Somaliland wadadani muhiimadeedii aanu ku dheeraan maayo waa la wada sheegay qiimaha yeelanayso iyo waxay naga dhimasho ama yar ma ka sheegay qiimaha wadada waxa weeyaan halkan anigu 3 jeer baan ilaa 4 jeer baan wadadan marayna xagga ku hoyday anu mashruucan jeeb Belgium markaan dawladda hoose aan kormeerayo ilaa 4 jeer oo 3 jeer baan halkan ka aan ku hoyday oo ka tagay Hargeysa kilomitir xataa qoreero waxaan arkay inay 3 meelood meel ka baxay kilomitirka aynu marno maanta ee aynu u soo marno Burco ilaa iyo Hargeysa 3 meelood meel baa ka baxaysa meeshaas waxay nagu haysaa dhaqaalaheena iyo culays ku haysaa. Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV ga Somali Cable deegaanka Kabadheere ee duleedka magaalada Burco ee gobolka Togdheer.